البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً waxaa mahad iskale Ilaahay weynaa inoo suurtageliyay anagoo nabada halkaas ku nimaadno. Markii xigta waxaa mahad iskale qabanqaabiyaashii xafladda tan quruxda badan ee isku nimid meel aad u khayr badan masjid Ilaahay. Maanta halkan waxaa lagu abaalmarin doonaa ardayda madrasadda Masjid Abu Bakar Fiisbaadin tartankoodii ay galeen bishii barakeysneed ee Ramadaan ee aan soo dhaafnay. Marka ugu horeysa insha Allah waxaan ku furan doonaa xafladeena aayadaha Quraanka Kariimka ah oo noo aqrin doono walaalkeen Rayaan Yuusuf. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. نامر لبعض سيو قرآن لغو أخريو مصعب محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. si uu soo dhaweyn ugu sameeyo waalidiinta noogana warbixiyo madrasadda iyo xilliga la aasaasay iyo gebi ahaan si u shaqeyso madaxa guud ee madrasadda Bukhari Cabdi Xasan ila soo dhaweeyay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaa sharaf weyn inoo ah in maantay markii labaad hadda ka horna idin dhahay insha Allah waxaa noo balan xaflad kasii qurux badan waxaa sharaf weyn inoo ah in maantay waalidiinta iyo ardayda iyo marti sharafta kale aan ku casuuno xaflad aad u qurux badan oo ah xaflad abaalmarin ah taas oo aan ku abaalmarin doono arday ka qayb gashay tartankii aan qabanay bishii barakeysneed ee Ramadaan tartankaas oo ka koobnaa qaybo kala duwan haddii aan ku hormaro anigoo waqtiga liisiyo aad u yar yahay qaybta hingaada iyo akhriska ayaa ku hormarnay maasha Allah arday ayaa kaalmo ka galay oo aan ku ogaanay heerkooda akhris iyo heerkooda hingaada ay hingaadin karaan waxaa kaloo ku xigay tartanka Qur'aanka Kariimka oo ayagana ee gruubyo kala duwan ay ka qayb galeen waxaa kaloo jiray tartan ku saabsanaa 100 su'aalood oo ku saabsan nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo muxuu ahaa taariikhdiisa buugaas oo ku baxay afka Jarmalka ayaa wuxuu ahaa 100 Fragen über unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaa sharaf weyn inoo ah in inta tartamadii la qabanayay ee si qurux badan ay u socdeen tartankii la qabtayna ay arday kaalmo kala duwan ay ka galeen kuwaas oo aan maanta ku abaalmarin doono insha Allah waxaan kalo bogaadina macallimiintii iyo muxuu ahaa waalidiintii u soo dhawr adeegay intii bishii barakeysneed ee Ramadaan lagu guda jiray sabtiga iyo xadii ay imaaneenay aad u mahadsanyihiin waalidiinta taas uga mahadcelina 100% waxa ku soo dhaweeyna qof walba oo maanta xafladda nagu sugan barnaamijkeena aad ku quruxda badan oo aan ku casuunay in ay nala arkaan ubaxa halkan lagu haayo dhab ahaantii madrasada Abubakar Fees Baden waxay asaasan tahay inta masaajidkan uu jiro intuu masaajidkaas aasan yahay waxaana ka qalin jibisay arday waxaa dhigato arday aad u tir badan kana tir badan 70 waxaa sharaf weyn inoo ah anagoo joogno dalkan haddana arkeeno dadkeena in ay jecel yihiin waxbarashadii waxaana hoggaan u nahay magaalooyin badan waxa taas ku bogaadina waalidiinta oo har iyo habeen u soo taagan iyo macallimiinta oo aan ku bogaadinayo iyo maamulka jaaliyada waxaan waalidiinta si qaas ah ugu mahadcelina waqtiyada adkaa ee nala soo mareen bishii barakeysneed ee Ramadaan ayagoo oo muxuu ahaa afur sameysanayo waqtiyada dambe nagala soo qayb galaya xafladda 100% waalidiinta aad ugu mahadcelina waxaan kaloo rabaa halkan in fariin kaga diro waalidiinta kale ee magaalada degan ee caruurtooda muxuu ahaa aanan dugsiyada aysan dhiganin waxaan si qalbiyan uga codsan lahaa in madrasada ay ku soo biiraan madrasada cid walba u furan tahay Fees Baden iyo Manis iyo magaalo walba noqoto madrasadana tuulooyin ayaa looga yimaadaa cid walba waxa ka codsan lahayn insha Allah in muxuu ahaa madrasada ay ku soo biirto waxa si qaas ah wax uga codsan lahaa dadka wax bartay si qaas ah uga codsan lahaa dadka wax bartay ee Qur'aanka yaqaano ee luqadda Jarmalka yaqaano dadka luqadda Jarmalka yaqaano waxay awoodaan in ilmaha ay luqadda Jarmalka ee diinta ay ku baraan anaga waxa awoodnaa maadaama aan nahay dadkii dalka yimid waqtiga dambe waxa awoodnaa luqadii afka Soomaaliga iyo Jarmal yar oo jajaban in aan wax ku barno ilmaha laakiin ragga intii muddada joogay qaarkood inta wax ku bartay jaamacadaha kaga baxay oo xitaa qaarkood ay shaqooyin weyn haystaan waqtiyada fasaxa ay haystaan waxa ka codsan lahayn inay noo yimaadaan ee ilmaha nala caawiyaan projectiyo badan jira insha Allah aan rabno inaan sameeyno kaliya ma ahan Qur'aan kaliya iyo tarbiyada waxa rabna projectiyo kale inaan furno oo ayna u furno dadka waaweynka ayagana ku baranaya Qur'aan Kariimka iyo diinta Islaamka cid walba oo wax baratay waxa ka codsan lahaa inay noo yimaadaan ee nala hadlaan si muxuu ahaa cid walba wixii taqaan ugu tixgelin insha Allah mar labaad waadiin mahadcelina 100% insha Allah kulay qaybo kale mahadcelina jiro barnaamijkan aad ku qurux badan waxa soo sameeyay dad asaan u qurxiyay kulay hawshan muxuu ahaa hawl fudud ma ahan laakiin qaybta mahadcelinta insha Allah idinkaga muxuu ahaa sheegi doona insha Allah dadka loo mahadcelinayo aad u mahadsantihiin khayr badan idin rajeena xaflad qurux badan idinkan si qaas idin ku rajeena assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mahadsan yahay madaxa guud ee madrasada Bukhari Cabdi Xasan رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لمان وحان إذنكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سلمد sida maartay maamulka madrasada u soo dhaweeyay marti sharafka halkan isugu yimid si lamid ayaan idin soo dhaweynayaa idinkana haddii ay yihiin waalidiin marti sharafka kale ardayda macallimiinta imaamiyada nooga yimid masaajidda kale dhammaan waxaan idin leenahay qalbi furan ku soo dhawaada. ayuha alikhwatul kiraam, xaqiiqdii waa in maartay aan ka mahad celiyo agaasinkan wanaagsan, nidaamkan wanaagsan oo maartay loo soo agaasimay xafladan. qof walba kaalinta ku lahaa ayaan ugu mahad celinayaa. waxaan leeyahay jazakallahu khayral jazaa. xaqiiqdii looma kala harin. kelmadeyda waxay ku saabsaneed watacaawanu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan, in la isku kaashado biriga iyo khayrka iyo alla ka cabsiga, in la isku kaashado ay ku saabsaneed. marka xaqiiqdii waa mid hadda aan u jeedno oo xafladan waxa lagu maartay aas-aasay iyo qaabka loo soo agaasimay waa midaas oo ah qof walba inuu kaalin ku lahaa. ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. ilaahay ma ilaawaayo oo maartay ma dayacayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo dadka muxsiniinta ajarkooda. marka waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa. ثانيا أيها الإخوة، وحالك ما أنت أن أجوجنه وإن أن أبال مرنه أرضي كلمة قلي إن لا إكرامه أو لا ماموسه ضدك أهل القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام درداركاس أي نوقت تجي وحول النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وينينتيس وحكم ذا سدحوا الشيء وحكم ذا قفك قارئ القرآن wax lagu tartamana ama la isugu yimaado waxa ugu khayr badan quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu karaameeyay quraanka. haddii aan quraankan aan ku dhaganaano oo aan kor yeelno ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu nacaynayaa. haddii quraanka aan ka tagnana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naga dhigayaa ummadaha ugu hooseyso. marka waxaan leenahay دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. كلي مرحلة دي للصامري مر كدم بيسو مرحلة كفي عن إيوه مرحلة وحنقلينا وما أرتي مرحلة دي هوركسي سريسو أرضيني هور صعد بدنا كم مغضه ددال بدنا كم مغضه. كلما أن أرنا جهدي جودي ددال كود أنا جهدي جن وزيادة يا معلن وحقوق جعلي هاي إلا ده معلن maartay waa la bartay waxaana baris waa fahanay ay ugu jecel yahay. marka ardayda waxay tusayeen inay wax fahmayaan. jiilka maartay hadda rajada ugu badan aan ka qabno waa jiilka hadda soo baxay. maxaa yeelay da'doodiyo yar iyo dadaalkooda badan ayaa waxaan ka rajaynaynaa insha Allah kaalimo hore inay meelo badan ka galaan. taasna waxay ku imaaday dadaal oo maartay xagga waalidiinta ka dhankooda ah iyo macallimiinta iyo maamulka oo aad u dadaalo. ayagana waxaan leenahay إلهي سبحانه وتعالى أول مرين وين هذين كسيو. أيها الإخوة، كلمة إذا وانسوكوا بيا وحكوسها بسنتهاي التعاون على البر والتقوى يعني إن السكو عاويه خيرك برك إيوه تقوى إلهي سبحانه وتعالى إن السكو عاويه وواجب شرع إلهي سبحانه وتعالى في سورة المائدة وأمره إلهي وحنا وتعاونوا على البر والتقوى اسكو عاويون إلهي سبحانه وتعالى. كلمة التعاون كلمة نعيك كوبنتها هل نع كلمة وكلا بدلشوا إن كان استعاون كيما إن كان سنة كيما دو إن مارتي مسلمين دائما مارتي هديتها أمورها الدين تودي هديتها مارتي أمورها آخرتي هديتها أموره اجتماعي أو كده حيي مسلمين تعام كأ إلهي وحولي وتعاونوا هل قف كليل لما أمرين هديو يها قفك أمر الشيخ أما قف عالمة أما هديو يها قفك مارتي ضدك عادي هديو يها قف أرضي لما أنت وانا الأمري وكلمة عامة وأمر عامة
waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amraya inaan khayrka isku kaashano daa'iman ilaahay wuxuu leeyahay tacaawanu cala albirri wattaqwa marka waxa loo baahan yahay in khayrka aan isku kaashano tacaawunka wuxuu ka soo bilaabanayaa guriga in ilmaha aan ku caawino waxbarashada in aan ku caawino taacada ilaahay oo salaada ay ugu horeyso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay wa'mur ahlaka bis-salaati was-sabir 'alayha laa nas'aluka risqan ehelkaaga far salaadu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa'mur ahlaka bis-salaah ehelkaaga xaaskaaga caruurtaada dadka qaraabadaada far salaada ilaahay wuxuu leeyahay kuna sabr marka waa in lagu sabro tacaawunka maartay markii aan maartay khayrka isku caawinayno markii aan maartay khayrka dadka farayno waxaan u baahannahay kadaalika inaan ku sabarno waa inaan badli la imaano si maartay maradhal uu noqdo waa inaan wax bixino aan isugu darno maal iyo dadaal inaan isugu darna loo baahan yahay ayuha alikhwatul kiraam maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa oo wax lagu bixiyo waa waxa ugu sarreeyo qofka maartay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u shukriyo waxa cadaynayso markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo khayrkiisa maartay ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu taageersan yahay ayuha alikhwa tacaawunka waxa kale loo baahan yahay in idaaradeenna maamulkeena masjidka tacaawun la mid ah inaan la imaano waalidiinta inay idaarada caawiyaan idaaradan inay waalidiinta caawiso tacaawunkaasaan dhammaanteenna isugu wada wacaynaa ilaahina subxaanahu wa tacaala tacaawunkaas ayuuna amray in wax walbo tacaawunkaasaan la imaano tacaawunka waxyaabaha wax u dhimo waxaa ka mid ah in la doodo oo liskhilaafo taas ayadana waxay keenaysaa in liscaawin waayo oo maartay tacaawunka halkaas uu ku dhamaado ilaahina arrintaas uu nooga digay إلهي وحليه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلهي رسولك سأطيعه هالضوضين وهمرمين إلى سبحانه وتعالى تنازع السميننا هدي أرنتها سيد على الكور هدي الاسخلافه ولا الضوضو وحد عيسو إلهي وحليه وفشل ميسان كدبنا أودينا تجيس مركه هدي مار تعاون كأن كتجنه وقاعد أودينا ضعيفس إلهي نو نشجي مركه أودينا كحرن فائدة إميروين كأن كهرين وحكمة التعاون إن إله سبحانه وتعالى دينتي سأنكو كريالينه تاسا وحول بوقس الرئيس وحا أنكو كشانينه وإله سبحانه وتعالى عبادة ديسا تاسا مركو وحول بوقس الرئيس التعاون كوحنا جارسينيسا إن دتك دن خيرك أوذا جارو إن مارت أود إله سبحانه وتعالى ونوبل نقاضي آن هلنه وحكى له مارتي فائدوين كلاجها التعاون كمد إن إله سبحانه وتعالى نحرس إنه قصة دكتو هدي أنا طيعن إله رسول كيسة إله وحنوب بلنقاضي إنه نحرسنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إله سبحانه وتعالى إله رسول كيسة أطيعه والذين نحرسنا يا مرك أيها الإخوة الكرام كلمة إذا هالكاس أيان قصة كوبايا والدين تا dadaalka ay wadaan maamulka dhammaan waan baraarujinaya waa dadaal aad iyo aad u wanaagsan oo meel sare gaalay barakallahu fiikum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah hadana waxaan rabnaa u yeero Sheikh Ayman oo ah oo ka socda madrasada makriska lagu magacaabo jamciyatul tabaadul الثقافي في سبادن مع داخل دايرها لهذا شيخ أيمن كلمة دي سو كوساب سنتها في عربي كوساب جديد دونا إن شاء الله وحينا كوساب سنان دون تهدي لها يدمو علمي أهل كيسا إن شاء الله واحد جينا كفاية صدونا أنسف عن اللي يصدونا. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ربنا لولاك ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله منزلا، وأسأل المولى سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على غير أرحام بيننا أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته إن شاء الله تعالى. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن ما اجتمعنا في هذا المكان الطيب المبارك برفقة فضيلة الأخ الحبيب الشيخ محمد والإخوة في إدارة هذا المسجد ورواد وجماعة هذا المسجد، ما اجتمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك إلا لإدخال الفرحة والسرور والبهجة على هؤلاء الأطفال. أقول أيها الإخوة الكرام: تحية إجلال لكل أب سهر على تربية أبنائه، تحية لكل أم سهرت على تربية أبنائها، تحية لكل أسرة كانت حريصة على تحفيظ أبنائها القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما أجمل أن نلتقي في هذا المكان لنكرم الأبناء والأطفال الذين سعوا لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. هذا النشء هو المستقبل الحقيقي لهذا الدين. هنيئا لهم حفظهم لبعض صور القرآن الكريم. حفظك يا كريم، اللهم بارك فيهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة عين لآبائهم، اللهم وفقهم في دراستهم، اللهم احفظهم في هذه البلاد، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور بالقرآن قلوبهم ونور بالقرآن بيوتهم واهدهم بحفظك يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم نور بالقرآن قبورنا ونور بالقرآن قلوبنا ونور بالقرآن بيوتنا واحفظ بالقرآن أولادنا. اللهم احفظ بالقرآن أولادنا، اللهم احفظ بالقرآن أولادنا، اللهم احفظ بالقرآن شبابنا. اللهم بارك في إمام هذا المسجد، اللهم بارك في إدارة هذا المسجد، اللهم بارك في جماعة هذا المسجد، اللهم بارك في رواد هذا المسجد. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم،
اللهم اجعلنا من الذين تعاونوا على البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. يا شيخ أيمن مركز تو نجلس قريب كلا حفلتها نوعنا وحمين نجمع ذلك كرا إن شاء الله. مركان واحد رأينا أويره دير هاي إدمو حمزة أو مدحة شركة Cargo City Frankfurt Flughafen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich hierher kommen durfte. Ich freue mich sehr, so viele Leute hier zu sehen und freue mich auch sehr, dass ich jetzt einen neuen Punkt habe, um auch hierher kommen zu können und beten zu dürfen. Auch an euch, liebe Kinder, sehr schön, macht weiter so, wie ihr es bisher macht. Ihr seid auf dem richtigen Weg, auch an euch, liebe Eltern. Für mich freue ich mich so sehr, dass heute so viele Leute hier drin sind und unsere muslimische Gemeinschaft immer weiter wächst und wächst. Dankeschön an alle. عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والدينتا أرضيدا معلمينتا iyo kasoo qayb galaasha kale waa salaamaya xafladda maanta inoo dhacaysa waa xaflad ka timi tartamo lagu qabtay masaajidka ardada loo qabtay oo maanta la abaalmarinayo ardadii ku guuleysatay tartamadaas waana arkaysaan quruxda iyo wanaaga ka muuqda iyo dadka isugu yimi iyo sida masaajidku maanta inoogu camiran yahay iyo sida xafladan quruxda badan looga soo shaqeeyay oo waqti la soo geliyay juhd la geliyay kharash la geliyay ilaahay kasta koow waxaan u mahad celinayaa maamulka madrasada oo shaqadan qabtay iyaguna halka maanta soo gaarsiiyay waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin shaqadaas quruxda badan aad bulshadeena u haysaan ilaahay baan idinka abaalmarinaya annaga ka gudi ahaan waxaan insha Allah diyaar u nahay madrasada inaanu sii caawino oo wixii annaga karaankeena ah aanu mar walba la garab joogno insha Allah inkasta oo madrasadu ay tahay madrasa aad u qaawaysan oo maamul fiican haysata oo iyadu ismaamusha oo iyadu shaqadeeda inta ugu badan qabsata laakiin annagana insha Allah wixii nagaga aadan waa qabsanaynaa waalidiinta caruurtooda halkan keensada oo wax bartaan oo masaajidka soo camira iyagana waa u mahad celinaya aad bay u mahadsan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in madrasadu saa inoogu sii socoto markastana waxay sameynaysaa madrasadu horumar iyo isbedel bay sameynaysaa waana wax loo wada arko oo markaanti doonta ah marka waa u mahad celinaa mar labaad maamulka madrasada iyo waalidiinta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kelmadana mar rabo inaan dheerayo waana idin wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daadir bulshaawi oo nooga yimid magaalada Maynis masjidka magaalada Maynis kusoo dhawo تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أولها سنة وآخرها واجبة تحية لو رفع إلى السماء لكانت كوكبا منيرا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladaha ugu quruxda badan kuwaas oo dhalinyarta maasha Allah lagu abaal marinayo dhalinyartaas oo ka qayb galay tartamada Quraanka Kariimka ah aniga oo ka socda waliba jaaliyada labada magaalada ee Wiesbaden iyo Mainz khaasatan hadda Mainz insha Allah aan ka socdo waxaan rajeynayaa insha Allah aan u sheegayaa macallimiinta oo kamid yahay macallin Bukhari iyo محمد inaan garbahooda taaganahay oo aan la shaqeyn doono mar walba iyo xaalad walba ay ku sugan yihiin insha Allah hadal aniga kuma wanaagsani kule waalidiintiina way joogan waxaan rajeynayaa insha Allah iyaguna insha Allah inaan iyagana la shaqeyno oo caruurtooda insha Allah ay diinta baraan anagu maanta insha Allah dadkii waxaan u nahay dhalinyartan ay ku dayan lahayd booska sii joogi mayno dhalinyarta hadda quraanka baranaysa la raba iyaguna insha Allah inay booska yimaadaan marka insha Allah waxaan leeyahay dadaal waa dadaashin intan insha Allah in ka badan sii dadaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh eri doonaa say nagu soo jeediso ama noogu qaado nashiido aad u macaan barwaaqo mustafa طلع البدر علينا من ثاني
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر سحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا هو أول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا قلوب سماء الكون لقد طوى لم نجد برفعتنا وأذان المسلم كان له بالغرض صدى من همتنا يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا رضو الإسلام ودوا ومحمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمان لنهضتنا ومحمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمان لنهضتنا waxaan geli doonaa qaybta waalidiinta waxa u yeeri doonaa si uu kelmadiisa noo yiraahdo maxamed gariig adeer maxamed gariig alxamdulillaah والثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مدحضة مسجدك أما مامولياشا أما مامولك مسجدك قودهان قارهان مامولك مدرسة مرتدى شرفت له waalidiinta rag iyo dumarba leh ciyaalkeenna dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh uma istaagin inaan qudbeeyo ama aan hadlo laakiin marka ugu horraysa waa inaan ka mahadnaqo xafladdan qiimaha badan dadkii soo agaasimay isku soo dubariday in ay ammaan mudan yihiin annaguna aan idhaahno waa mahadsantihiin marka xiga ciyaalka maanta jaa'isada halkan lagu siinayo iyo kuwa kale dhammaan dhigta madarasadaba waxaan leeyahay iyaguna maasha allah maanta waxaa muuqata in mustawaha ay maanta madarasadu marayso inuu yahay kii ugu sarreeyey muddo 8 sano ah ugu yaraan oo ay madarasadani jirto waxaan ka mid ahay waalidiintii ugu horraysay oo bilaabay inay ciyaalkooda ay keensadaan madarasadan ugu horrayn markii la furay masjidkan 2015 ciyaalkaygii qaar waa qaangaareen waa ka tageen
qaarna waa yareer yihiin oo weli waa dhigtaan laakiin maanta iyo sanadkaani mustawaha ay madarasadu taagan tahay waa tii ugu fiicnayd xag maamul iyo xag tayo labadaba waxaana taas abaalkeeda iyo wanaaggeeda iyo sharafteedaba dabcan ay u noqonaysaa ciddii ka shaqaysay maamulkeeda iyo hagiddeeda waana sanadkii waxaan dhihi karaa ugu miro dhalka badnaa oo aannu aragnay markii ugu horraysay arday qur-aanka dhammaysay marka maamulka madrasadda si gaar ah baan mar labaad ugu mahadnaqaynaa haddaannu nahay waalidiinta waxaanan filaynaa in meeshan ay taagan tahay iyo xaaladda maanta ay tahay madrasaddu ay ka sii wanaagsanaato aysan marnaba hoos uga dhicin saasaannu ka rajaynaynaa insha allahu ilaahay idankiis waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba waad mahadsantihiin annagu ka waalid ahaan anigu ka shakhsi ahaan waxaan ballan qaadayaa in aan si dhow ula shaqeeyo maamulayaasha iyo macallimiinta madrasadda iyo guud ahaan maamulka masjidkaba waayo hadduusan masjidku jiri lahayn madrasad ma jirteen marka muhiimaddu waa masjidku inuu jiro si madrasaddu ay u jirto marka madrasadda iyo masjidkuna waxaan ka mid ahay iyo guud ahaanba jaaliyaddaba xubin baan ka ahay ilaa muddadii ay soo jirtay dadka waalidka ah ugu dhow dariska la ahna waan ahay waanan ku faraxsanahay maanta meesha ay taagan tahay waxaana ilaah uga baryayaa inay intan ka sii wanaagsanaato mar saddexaad mar afaraad mar shanaad mar lixaad waxaad ilaahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladda way noo dhammaan rabtaan u malaynaa marka dadkii lagu casuumay keliyaha qayb uga furantaa u malaynaa inay comment ka bixiyaan wixii meesha ka dhacay aragtidooda marka alxamdulilah rabbilcaalamiin war kale ima furra waxaan rabaa inaan u mahadnaqo oo keli ah inta dadaalaysa oo dadkeenna ah oo maamul leh oo macallimiin leh oo waalidiin leh oo ardada wax baranaysa oo waalidiintii macallimiintaba maqlaysa hadalkooda iyo awaamirtooda leh marka intaas mahadnaqaas besaan rabaa inaan maaragtay aan iraahdo oo aan mahad celiyo maxaa yeele waa dadaal naloo wada qabanayo dhammaanteenna naloo qabanayo waa maaragtay mustaqbalkeenna la dhisaayo marka commentigaas yar oo aan ka bixinayo oo ah inay tahay shaqo si fiican loo qabtay besaan rabaa haddana in commentigaas ka bixiyo farxad weyna ka muuqata meesha oo ah in wax la qabsanayo wax la isla qabsanayo la leeyahay maamul ummadeed la leeyahay maaragtay maamul waxbarasho oo maaragtay waxbarasho oo waliba diini ah ma sha Allah iyo waalidiin iyo ubadkii intaas oo dhan oo isku xiran wallahi runtii waa farxad aad u weyn waxaan marka insha Allah aan ku wada dardaarmeynaa oo aan idigu dardaarminaa inaan la xajiyo insha Allah taala faa'iidadaas oo meelna aanay ka soo gelin naaqus ka soo gelin waa ku dheeraamaha salaadiya jirta aadan idii salaama waana idinku hambalyeynaayaa shaqadaas waxaan oo aad isla haysiin dhammaantiin qayb kastoo aad ka koobantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadana waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijkeena ama xalfadeena quruxda badan insha Allah mar dhow waxaan geli doonaa bixinta hadiyadaha lagu talagalay ardayda halkaan ku tartantay oo kaalimaha fiican ka gashay intaas aan u gudagelin waxaan rabaa inaan mar labaad u yeero madaxa madrasada Bukhari macallin Bukhari si uu mar labaad ugu mahad celiyo ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan marti sharafta halkaan ku sugan wixii information kale oo uu siinayna uu siiyo insha Allah wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaa u mahad celinaa waalid walbo marti sharaf walbo iyo dhammaan ardaydii inta barnaamijka quruxda badan ka soo jeedisay waxaa rabaa man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah waxaa rabaa inaa u mahad celiyo dadkii
soo agaasimay barnaamijkan aad ku quruxda badan kulley anaga ka maamul ahaan iyo macallimiin ahaan barnaamijkan kaliya anaga ma qabanin waana la qabtay waxaa jeclaan lahaa kulley mahadcelin muxuu ahaa la mahadceliyo midda ugu quruxda badan ayaa waxaa rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo qabanqaabayaashii barnaamijkan aadka u quruxda badnaa ee goordhow noo soo gabagaboobi doona insha allah waxaan rabaa halkan in aan kaga mahadceliyo ugu horeyn maamulka jaaliyadda oo ay nagala joogaan ustaad maxamuud liibaan iyo daadir bulshaawi iyo dhammaan maamulka jaaliyadda waxaan rabaa sidoo kale halkan inaan kaga mahadceliyo waalidiinta iyo muxuu ahaa ardayda si qaas ah waalidiinta waxaan rabaa halkan inagu mahadceliyo walaasheeda fartuun jibbi oo iyada ah muxuu ahaa waalid macallimiinta iyo maamulkaba garab aad u weyn u muujiyey waxaan rabaa si kale halkan inaan ugu mahadceliyo si qaas ah maama ijaabo oo halkan nala joogin umu zaciim waxaan rabaa halkan sidoo kale inaan ugu mahadceliyo luul jibriil oo umu almaas ku magac dheer oo iyadana ah walaal meel dheer nooga yimid barnaamijkan inuu nagala qayb qaatana aad muxuu ahaa u jecel mar walba iyadoo gabar aad u yar wadato iyadana si qaas ah ugu mahadcelinaa waxaan rabaa sidoo kale halkan inaan ugu mahadceliyo si qaas ah mar labaad macallimiinteena macallin riima oo halkan ka maqan sidoo kale walaasheena mahada oo dhab ahaantii hadiidahan aad ku qurux badan ee aad arkaysaan shalay nala sameeyay waqti qurux badanna geliyay waqtigooda oo aad u koobnaa waxaan sidoo kale rabaa halkan in aan kaga mahadceliyo dhammaan marti sharafta quruxda badan ee noo ogolaaday in xafladani aad u qurux badan ee nagala soo qayb galaan waxaan sidoo kale u mahadcelinaa ardayda si qaas ah ugu mahadcelinaa ardaydii barnaamijka quruxda badneed halkan ku soo bandhigay waxaan cid walba waalidiin walba oo muxuu ahaa magaalada degan iyo hareeraheedaba insha Allah ku martiqaadi doona barnaamijyada noocan oo kala ah waxaan rabaa mahadcelin qaas ah in halkan aan ugu mahadceliyo maama Maryam umu Rayaan oo ku magac dheer inay nala joogtaa jeclahay waa maamo nala walaalowday oo aan ahayn Soomaali oo aan ilmo u dhignin madrasada oo muxuu ahaa barnaamij walba nagala qayb qaadato bishii barakeysneed ee Ramadaan aad noo caawisay haddana xalay ilaa haddana nala garab istaagneed barnaamijkan aad ku quruxda badan ee qabsanay umu Rayaan waa hooyada dhashay Rayaan muxuu ahaa wiilkan aad ku daadiyar ee Quraanka noo akhrinay iyadana insha Allah waxa ugu tala galnay maadaama ay na tustay jacayl iyo walaalnimo iyo ehelnimo iyo islaamnimo ay na tusisay anagana kulley mahadcelin gaar ah u heena iyo abaal u heena hadiyad qaasana nagu leedahay insha Allah hadhow waxa guddoonsiin doona insha Allah waalidiinta haatan waxa u gudgali doona insha Allah qaybtii hadiyad bixinta waxa jeclaan lahayn in ilmaha nagala aamusiyo hadiyadahana aad u tira badan yihiin in nolo sabra jeclaan lahayn insha Allah idinkoo raali ah qofka koowaad loo yeeray waxa weeye Barwaaqe Mustafa waxay kaalinta koowaad ka gashay tartankii juscama oo xafdis ah ay kaalinta koowaad ka gashay kaalinta koowaad ku soo dhawow Barwaaqo ma sha Allah Allah yabarak هنيئا لك كبشاريسو إله سبحانه وتعالى كما أنت آخر قول السنة إله كادقه والد كاغن إله سبحانه وتعالى درجة دير هقارسيو دمي قود إله دار سديس محمود سديس محمود وحوق عليك كالين طلبات جس عامة أو حفظ ما شاء الله هديدها بحنين هديدها وقص الرأيو وحكو قول السي ardayda xafdiska jus camme kaalinta labaad ay ku guuleysay Sudays ku bishaarayso maanta inay tahay maalinta abaalmarintaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaalmarinta aakhirna ku siiyo waalidkaaga in Ilaahay u dib dhaafo barakallahu fiik soo dhawow hanii'an lak Sudays wuxuu ku guuleystay hadiyadan Sudays soo dhawow
ثانيو وحو قالي كالين سدحات جس عامة أو حفظ ما شاء الله كو بشاريسو كالين سدحات إله سبحانه وتعالى بالمرنت آخرنا هكو السيو والد كاغن إله ودن بدافو ديغان مصعب وحو سجنه كالين تكوات كقالي سورة النصر إلى إيو سورة الناس أرضي كتر تميسي أيو كالين تكوات كقالي وحكو قوليسي شهادو إيو هدية بارك الله فيك سودو كو بشاري سمانتا قفل بعد دال وقارة marka ardayda dhamaan waxaan rajaynaa insha Allah kaalmo ka saareyn gali doonaan soo dhawow maajida waxa kaalinta labaad ka gashay ardayda groupka suuratu nasr ilaa suuratu nas waana xifdis maajida ku soo dhawow hadiyad qaali ah iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala in uu ka dhigo ku ilaahay subhanahu wa ta'ala oo raali ka yahay ayaan kugu duceynaynaa ku bishaarayso qof walba dadaal insha Allah kaalin ayuu gaaraya barakallahu fiik labadan gabdhood halkaan ay wada galeen waa kaalin saddexaad suuratu nasr ilaa suuratu nas waa qaybaha xifdiska ma sha Allah dadaal dheeri ay la yimaadeen waxaan ku abaal marinaynaa hadiidahaas ilaahay subhanahu wa ta'ala raali idinka noqdo waalidiintiina ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto ma sha Allah dadaalkiina hore u sii badiya جس تبارك وحكالنت كواد قالي محمد جامع محمد ما جوجا اوكي هديد اسماعيل لو دغا ان شاء الله هديد اس غدال ka qaadan doona waa ka soconayna ardaygaas ardayga la dhiirigeliyo inuu dadka hor istaagi karo inuu tartami karo inuu maartay wuxuu bartay uu muujin karo arintaas muhiim waay gabadhan kaalinta labaad ku guuleysatay barakallahu fiik jazakallahu khairan wa ghafara Allahu li walidayk waxaan galnay جس عامة أو أخرس أرضي كنت ترتميسي بارك الله فيك جس عامة عليه السلام زعيم وحكانت كوات كجلي جس عامة أو أخرس كان أيضا اللي رجلي مضم واي وحرجينا إن شاء الله سنة كسوس صعدة أما رمضان كسوس صعدة إن شاء الله إن كنت ترتمي دون حفظ كانت كوات مارتا أيوة حكجلي جس عامة بارك الله فيك سودو عبد الله وحلينا هاي عبد الله كوب الشاريسو ما أنت أو أمال مرنتي لما أنتين وقود هم بليننا لما أنتين أرديد هالكم كوجول الستي وحالك أول معنا إن إذا فرحت قلنا إن إذا كون فرحنا إن شاء الله وحرجينا رمضان كسوس صعدة حفظ إنا كتر تنتان بارك الله فيكم وحق الشيء كالنت السدحات أميرة ما شاء الله دال كذا وفعناه جس عامة أو آخرس أي كتر تنتي وحين كوجول الستي هدية أميرة إلى سبحانه وتعالى أكاديجو أبال مرنت آخرنا مثل الشه والد كاجن إلى سبحانه وتعالى هودن بدافه يدمان أرضي ما أنت مارتي كلمة هجلي يدمان أرضي ما أرت هل كان جوكته إلى سبحانه وتعالى دم بيجو والد كود هداف أرضي لو مرمي عسليرناي تاسو حكينيسو ويبناين tartanka waxyaabaha aan ku sameeyeen waxa kamid ah su'aalaha nabiga kaleey salaatu salaam iyo tartanka quraanka marka ardaygii waxa laga yaabaa mar inuu hingaadi meel ka helo in boqolkii su'aal in maar tartankii qayb uu ka gal kaalin mar labaadna haddana xifdiska quraanka ama akhriskana uu meel ka helo amiira mar labaad hadiyada aan ugu wacnay waa kaalin maartay ku saabsaneed boqolkii su'aal ay waxay maar tartan ku galeen kontonkii su'aal ayaa su'aal laga weydiinay nabiga kaleey salaatu salaam nolosha ku saabsaneed buugga boqolkii su'aal ayaa waxaan ka dhex dooranay kontonka su'aal ugu horeyso ay ku tartameen ayadii ardayda kale waxayna gashay kaalinta koowaad amiir mar labaad kaalinta koowaad ay waxay ka gashay su'aalaha nabiga kaleey salaatu salaam amiira ku bishaarayso ma sha Allah soo dhawow ayaan ku leenahay barakallahu fiik markii hore kaalin kale ay ku jiray haddana mar labaad kaalin kale ay ku jiraa ardaydaas oo kale waxayna tusinayaan ma sha Allah ayaan leenahay dadaalkooda inay tusinaysaa in halkaan uu maartay darajo ka galo halkaan darajo kale uu ka galo marka mar walba waan soo dhaweynaynaa Sudays Maxamuud wuxuu ku guuleystay kaalinta labaad ee kontonka su'aal ayuu ku guuleystay Sudays Maxamuud waxaan leenahay ku bishaarays maanta booska aad taagan tahay waxa farxad ugu weyn arday walbana sidaas oo kale ayaan rajaynaynaa inuu u dadaalo marka ardayda
qaar waxaa jira 2 kaalin galay qaar waxaa jira 3 kaalin galay qof walba oo meeshan joogo arday ah waxaan ka rabnaa haddii uu guuleystay inuu farxo haddii uu guuleysanina saaxiibkiisa ama saaxiibteeda gabadha inay taageerto guusheedan ay ku faraxdo labada mar waa guuleysateen ma sha Allah Sudays Maxamuud kaalinta labaad ayuu ka galay tartanka kontonka su'aal ee nabiga kaleey salaam Maahir Cabdiraxmaan wuxuu galay kaalinta saddexaad kontonka su'aal ee aan ka weydiinay nolosha nabiga kaleey salaam kontonka su'aal ku saabsaneed ayuu maartay si fiican kaalimaha ugu horeey ka galay ardayda dadaashooy badnaayeen laakiin Maahir wuxuu galay kaalinta saddexaad dadaalkiisna aad u badnaa waxaan leenahay ku bishaareyso waxaan halkan u joognaa farxadaada Salma Aways waxay kaalinta koowaad ka gashay 30 su'aal oo ku saabsaneed nolosha nabiga kaleey salaam Salma waxaan leenahay hambalyo ku soo dhawow Muwaahib waa kaalinta labaad aaday u dadaalaysay inta tartanka aan la gaarin isdiyaarinteeda aaday u badneed waan ka warhaayay Muwaahib waxay gashay kaalinta labaad 30 su'aal oo nabigeena kaleey salaam laga weydiiyay su'aalihii laga weydiiyay si sax ay ugu jawaabtay taas waxay cadeynaysaa in ihtimaam badan akhris badan xifdis badan ay soo sameysay Miya Yusuf waxay gashay kaalinta saddexaad 30 su'aal ay waxay ka gashay kaalin saddexaad Macallin Bukhari wuxuu dhahay ardayda hal mar hadiyadooda isku siinu dhahay marka way imaanayaan naw kaalintooda muujinayno hadiyadeedan hore u qaadatay Saamiya hambalyo darajada maanta aad joogtid insha Allah darajo ka sii sareyso ayaan rajaynaynaa insha Allah haddana kaalinta koowaad hingaada ardayga ka galay ayaan sheegaynaa Sudays iyo Sahayb oo ayaamihii dambe hingaada nagala qayb qaatay kaalinta koowaad waxaa galay Sudays Maxamuud halka ha yimaad si aan ugu hambalyeeyno dadka hortooda hadiyadiisa hore u qaatay laakiin halka ha yimaad Sudays hingaada kaliya qoraal kuma jirin way hingaadinayeen wayna akhrinayeen laakiin waxba lama qoraynin kaalinta koowaad Sudays ayaa galay Sudays kaalinta koowaad hambali ayaan ku leenahay waalidiinta hortooda mar sharaf hortooda ayaan kugu hambalyeynaa hadiyadna waa ku guuleysatay ma sha Allah hore u soco ardayda insha Allah tusaale u noqo barakallahu fiik kaalinta labaad waxaa galay hingaada Mus'ab Maxamed Ali oo maartay isagana dadaal aan la filayn la imaaday ma sha Allah oo kaalinta labaad ciriirsaday Macallin Bukhari wuxuu yiri Mus'ab wuxuu mudnaa kaalinta koowaad laakiin waxaan ku dhahay dib male ardayda maadaama aan daa lagu xiray shardi uusan jirin dib male Mus'ab ardayda sare ku jira ardayda waaweyn haddana dib male ardaydan kale hingaadan uu ku soo biiray marka kaalinta labaad oo bila munaazaca ayuu galay Mus'ab waa ku hambalyeynayna hadiyadna waa ku siinay hadiyadaadana horaan ku siinay ma sha Allah maanta dadka hortooda kugu abaal marinayna dadaalkaaga intaas ka sii baday barakallahu fiik kaalinta saddexaad waxa ku guuleystay Maxamed Salebaan oo ah arday dadaal badan tartan hore la qabtayna kaalinta koowaad galay waa tartankii labaad oo haddana kaalimaha ugu horeey u galay Maxamed Salebaan Ciid Maxamed waa arday ma sha Allah oo maartay markii wax la sharaxay inuu wax dhageysto jecel inuu wax fahmo jecel oo xaadir ah mar walba ardayga inuu xaadir yahay wax walba nooga muhiimsan Maxamed hadiyadiisna hadduu qaatay ma sha Allah waan u hambalyeynaa waana kaalin saddexaad ardayda kale Maxamed waxaan ku leenahay hambalyo waalidkaagana oo mahad celinaynaa ilaahay dambigooda ha dhaafo ardayda kale kaalimaha aan galin waa u mahad celinaynaa xaqiiqdii waxaan ugu lahaydeen hadiyado laakiin waa wada awoodi weynay si marka insha Allah tartankan imtixaanada soo socda ee ugu sii bilaartaan waxaan rajaynaynaa insha Allah in loo wada istaago ardayda saan wada abaal marin lahayn maanta waxaan jeclaan lahayn arday wal meeshii yimaado inuu hadiyad la tago maxaa dhamaantood dadaalay hadan buundooyinkooda intuso ardayda tartanka imtixaanada gashay waa yaabaysan kulli kaalimaha ugu horeey ku jireen laakiin maartay dadkan kamada qosaysan laha maartay markii tartan la galo qof walba ma guuleysto marka kaalimahan ardayga gashay ardayda kalena dadaalkooda ma sha Allah wuu cajabiyay waxaan rajaynaynaa insha Allah dhamaanteena in aan ku wada faraxno ardayda guuleysatay waa caruurteena waa walaalaheena in aan wada hambalyeeyno aan ku faraxno
waxaan dhahnay qofka laba mar guuleystay marna isaga guuleystay marna saaxiibkiisa guuleystay marka maanta dhammaanteen waa guuleysanay arday kala jirto oo kaalintooda aan la ilaawi karin arday oo maartay madrasada aan dhiganin laakiin walaalahooda soo raacaan daa'iman way yimaadaan madrasada intii ay dhageysanayeen way xifdiyeen maalinta dhoweed marka hal imtixaan la su'aalihii nabiga lagu imtixaano su'aalaha la weydiiyay kooban way ka jawaabeen maasha Allah su'aalaha ugu horeeyo oo maartay ugu muhiimsan nolosha nabiga kaleey salaatu wasalaam way ka jawaabeen ardaydaas haddana u wacayna halka hadiyado ku siinayna waxa ugu horeyso hibo insha Allah maasha Allah waa ardaydii su'aalaha ka jawaabay marka ardayda dhagay wax ka bartaan markay yar ilmaha dhagay wax ka bartaan ayagoo yar mana la oga laakiin waxyaabo badan ay xifdisan yihiin waxyaabo badan ay barteen madrasada ha yimaadaan imaatinkaas wax barasho ah ha dhageystaan maasha Allah ilmo waxa la ii sheegay oo yar oo muddo kooban quraan ku xifdiyay waalidkiis markuu u shiday Tom and Jerry codku ka xiri jiray quraan u shidi jiray Tom and Jerry uu daawada quraankan uu dhageystaa muddo kooban 5 sano meelahaas quraan ku xifdiyay Allah cuniga soo aad u yar ayuu quraanka xifdiyay marka ilma ikhlaas Maxamed Ali ikhlaas yariisay oo ayadana maasha Allah maalinta dhaweed u guuleysatay dhamaantood marka aan waxaan u doortay ardayda yar kaalin koowaad hiba koowaad ay gashay ikhlaasna waxay gashay koowaad mar walba ay kaalin koowaad way maasha Allah ikhlaas Allahumma خمسة هل كان لغو وعايا خمسة ما شاء الله أيضا وحي كجرتي أرضيدا لامتحاني ما شاء الله أيضا وحي كجرتا كالنت كوات ما شاء الله خمسة سؤالها لو يدي الصحة يقول جوابتي سلام دماتين والدينتا معلمينتا قديقا أرضيدا دمان كسو قيبقلياشي حفلة waxaan anagoo ah wakiil waalidiinta waxa jeclaysanay inaan hadiyo gudoonsiino macallimiinta biidnillaahi kariim macallin maxamed bay hadiyada u horeysay gudoonsiin doontaa hadii la haydmo ما شاء الله ما شاء الله هذا عبد القادر اسمه ولا واعية ما شاء الله waxaan naga maqan macallin Riima oo caruurta ka caawin jirtay macallimiinta la caawin jirtay hadiyadeedii waxa uu gudoonsiinaya oo ugu dhiibaya macallin Bukhari macallimiinta waxa leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxa noo qabateen shaqo aan qaban karin waxa kale aad ugu mahadcelinaya gudiga hadii aan masaajid lahayn meel ilmaha ku baran lahaayeen ma jiri lahayn hadii aan ma aragtay dad isku xiran oo maaragtay aan ahayn meel ilmaheena maanta ay kaalmo ku qaadan lahayn ma dhici lahayn marka waxaan leeyahay gudiga aad u mahadsantihiin ka waalid ahaana kale insha Allah waa idin la shaqeyn doona waxaan rajaynayaa xalfadeeda kaleeto inaan helno masaajidkan ka weyn meel meeshan ka weyn oo maaragtay aan xalfad aad u weyn ku dhigano ilaahay idinkiis ilaahayna ha noo qadaro dhamaantiin waa idin salaamaya fartuun aad u mahadsan tahay waxaana ka gudoonnay anagoo dhammaan macallimiintii afkooda ku hadlaayo hadiyadii quruxda badneed dhammaan waalidiinta aad ugu mahadsantihiin hadiyadiina aad ku qurux badan waa idinka qabnaa kulay idinka mudan in la idin jaa'izeeyo sababtoo ah shaqadan aad ku quruxda badan idinka soo qabtay waana ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad u mahadsantihiin kan had indhihiina ku arkaysiin laakiin hadhow dad badan waxa laga arki doonaa insha Allah kaamirada waxa raba halkan ay ka mahadceliyo Jiinda Media oo ah media noo duubay barnaamijka Jiinda waa ninka ila taagan Jiinda Media asiga xiriyaha noo aha mediahana asiga iyo muxuu ahaa macalinka weyn ee ustaad Mustafa Asla muxuu ahaa wado aad ugu mahadcelina gacantooda barakeysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr ha ka siiyo kulay barnaamijkii ugu horeeyay nagala soo qayb galeen barnaamijyo kale ka qurux badan aan waraajinayna nagala soo qayb galaan aad u mahadsantihiin barnaamijka qurux badan aan noo duubteen si la mid ah sidii hore idin kugu dhahanay sawirada qurux badan aan noo qaadeen aad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol
ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo. waxaan kaloo rabaa si qaas ah inaan ugu mahadceliyo kolley mahadcelinta ma dhammaanaysa maantay mahad jamaal axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo ganacsado ah oo naga caawiyey geshankiyada maanta ilmaha halkaan ku guddoonsiinaynay oo si free ah asiga jeebkiisa nagala bixiyey. ilaah subxaana wa tacaala waxaa ka baryaa ganacsigiisa inuu u barakeeyo. waxaana insha allah ku baaqaa ganacsatada kale ee soomaalida ee magaalada ku nool dad la abaalmariyo dad la dhiirigeliyo waxaa ugu mudan ardada. ilaahu hal eero ha ka dhigo oo lagu bixiyey hal buug oo lagu soo gaday 20 euro 100 euro waxay noqoto ilmaha abaal idinkaga hayaan waxbarashadana insha Allah ma ku hilmaamayaan. hada mahad jamaal magaciisa asiga laga yaabaa inuu si rabin inaan sheego laakiin aniga jecleystay si ay ugu daydaan ganacsatada kale ee Soomaali ee magaalada ku nool. aad ugu mahad celina ilaah subxaana wa tacaala ajri xasanad ilaah ka siiyo abaal iyo sharaf ayaa uga heena mahad tusaale muxuu ahaa noo yahay ilaah subxaana wa tacaala caruurtiis iyo familkiisna ilaah u barakeeyo. aad u mahadsan dhammaantiina waa idinkaga mahad celinaynaa ka soo qaybgalka qof walbana kaalinta uu lahaa ayaan ugu mahad celinaynaa. waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto in waalidiinta ay maaragtay si joogto ah ardayda u keenaan maalmaha madrasada maqnaashaha badan ardayda dibdhac badan ku yahay marka ardayda maqnaashahooda uu badnaa waxbarashadooda way liidataa. waalidiinta ilmaha cudurdaarka u sameynaayo dabaalu leeyahay ciyaaru leeyahay dhahayo waxaan leeyahay ilmaha inay wax bartaan ayaa wax walba ugu muhiimsan khaasatan diintooda ay bartaan marka xoogga soo saar inay yimaadaan qofka cudurdaar lena xilli hore ha soo cudurdaarto. barakallahu fiikum. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا غائبا إلا حفظته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا خلوا بسماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا وأذان المسلم كان له بالغرض صدى من همتنا يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا رضو الإسلام ودوحته في أرض الرواها دمنا ومحمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الأمان لنهضتنا ومحمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.